الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa kulankeena inuu ka dhigo kulan barakaysan, allana subxaanahu wa tacaala naxariistiisa uu ku soo dejiyo. waxaan alle subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu carabkayga qalbigayga ku sugo kelimadda xaqa ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiinaba u furo, nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca. aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah, ulaa'ika aladiina hadaahum allah waulaa'ika hum ulu lalbaab. intaa kadib walaalayaal, mowduuca aynu ka hadlayno sida aada maqasheen waa geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dardaaranadiisii u dambeeyey ee ummaddiisa uu siiyey calayhi salaatu wassalaam. nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay: man صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. qofkii hal mar igu saliya, ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku saliyaa bedelkeeda 10 goor. halkaa waxaad ka helaysaa ajar aada u fara badan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam aada ku salido. sidoo kale nebigeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa amray in lagu saliyo oo dadka mu'miniinta ay ku saliyaan, salligiisana ay badiyaan. wuxuuna u sheegay in alle subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisuba ay ku saliyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam, siduu alle subxaanahu wa tacaala u yihi: ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigeena calayhi salaatu wasalaam marka aada ku salido aada badiso salligiisa waxaad abaalgud u helaysaa alle subxaanahu wa tacaala inuu hamigaagana alle subxaanahu wa tacaala uu kaa qaado, allana subxaanahu wa tacaala umuurtaada u yasiro. waxaana u daliila xadiiskii ubay bni kacab radia allahu canhu oo uu ku yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam: rasuulkii allahu haddii aan salaadayda nuskeed ku yeelo ka waran, yacni ducadayda ka badan haddaad samaysana way ku khayr badan tahay. aakhirkii wuxuu yidhi haddaan ducadayda oo dhan ba adiga kaaga dhigo, ku sallintaada adiga aan kugu saliyo, wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam: idan hamigaagana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaa qaadaya, umuurtaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku yasirayaa oo dan ku quminaya alle subxaanahu wa tacaala. nebiga calayhi salaatu wasalaam xuskiisa iyo taariikhdiisa iyo qeyb siiradiisi ka mid ah amase kaba mid ah gunaanadkii noloshiisa calayhi salaatu wasalaam adduunyadan, waxaa loo baahan yahay hadda iyo wakti walbaba inaynu badino salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam, waan idhaahno allahuma salli wasalim calayh. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. موضوعا wuxuu noqon doonaa taqriiban inta aan uga hadli doono ilaa 10 qodob. kow, maxay tahay muhimadda ma ogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam geeridiisa tay xanuunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u dhintay. 4, ma la kala dooransiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam nolosha iyo geerida. 5, sidee bay ahayd muddadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xanuunsanaa. 6, maxay ahayd dardaaranadii u dameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ummaddiisa u dardaarmay si aynu u xusuusanno waxyaalihii ugu muhiimsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ee ayaamihii u dameeyey noloshiisa uu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. arrinka 7,
nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii u dambeysay noloshiisa adduunyadan maxaa dhacay, maxay ahaayeen arrimihii ugu muhiimsanaa oo maalintaa dhacay, sideed imise ahaa cumriga nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay, 9 asxaabtiisa sidee xaalkoodu noqday markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu adduunyadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka oofsaday, sidee ay ugu murugoodeen, sidee ayayse xaalkoodu noqday inay u qaabilaan geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam. 10 sidii loo kafnay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama loo dhaqay loo aasay nebiga calayhi salaatu wasalaam. ugu horeyntii mowduucan inaan ka hadalno muhiimadda uu leeyahay waxaa u daliila nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay arrinkan musiibada ugu weyn oo qof muslima soo marta inay tahay, musiibo ka weyn oo ummaddan soo martaana inaanay jirin oo ka weyn musiibadii geerida nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaana u daliila xadiis saxiixa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay idaa usiiba axadukum bimusiibatin, midkiin haddii ay musiibo ku dhacdo falyadkur musiibatahu bi, musiibadiisa aniga ha igu xusuusto, fa inahaa acdamu lmasaa'ib, geeridayda waa musiibada ugu weyne middaa ha ku xusuusto. sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala khabarkii iyo qur'aankii samada inagaga soo hoorayey wuxuu la go-ay geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku dhammaa, oo waxyi damo oo soo degaya markii uu geeriyooday nebigu calayhi salaatu wasalaam ma jiro haba yaraatay iyo qof loo waxyoonayo ama ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala wax looga soo sheegayo ama fariin lasoo farayo oo la odhanayo dadka sidaas iyo sidaas ku dheh oo xukun iyo shareecad noqonaysa waa dhammaatay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu oofsaday. waxaa kaleeto oo ay musiibo u tahay, muhimadna u tahay in laga hadlo waa khitaamkii nubuwada oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ku khatimay nebiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diriyey ayaa lagu khatimay. sidoo kale ummaddan wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ammaan u yahay asxaabtiisa, asxaabtiisuna ay ammaan u yihiin ummaddiisa, sidoo kale xidiguna ay ammaan u yihiin, samada ay ammaan u yihiin. saas darteed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana amanatun liasxaabi, asxaabtayda ayaan ammaan u ahaye nabadgelyo, haddii aan anigu tagana ataa asxaabii maa yuucaduun, asxaabtay waxaa ku imanaya wixii loo yaboohay, asxaabtayduna ummaddayda ayay amano u yihiino asxaabtaydu hadday dhammaadaan ummaddayda wixii loo yaboohay ama fitan ama imtixaan ahaa ayaa ku imanaya ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markii ay oysay umu ayman haweenaydii la ohan jiray waana haweenihii nebiga calayhi salatu wasalaam soo nuujiyey ka mid ahayde waxaa soo siyaartay abu bakr radia allahu canhu iyo cumar radia allahu canhu ayaa waxay soo siyaarteen umu ayman. taasuna waxay daliil u tahay dadka wanaagsan rag iyo dumarba waxay yihiinba in la booqan karo oo khayrka lagaga xusuusto. way soo siyaarteen, markay soo siyaarteen oo u yimaadeen maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyooyinkiisay ka mid ahayd ayay oysay. markii nebigu calayhi salatu wasalaam u geeriyooday way oyday, markaasay waxay ku yidhaahdeen maxaad u ooynaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam, miyaadan ogeyn ilaahay xaggiisa waxa jira inay u khayr badan yihiin. markaasay waxay tidhi anigu lama oynayo bay tihi geerida nebiga calayhi salaatu wasalaam,